waxaa wax la yaab laha ninka maanta leh fatwadii sheekh umal ayaa carruurtii ku agawooday waa muqdisho joogta oo raba muxaadara in loo jeediyo taariikhda in laga been sheego sax maaha intaa waa mawaaqif wada caam oo markhaati lahoo la wada joogay wey haddii aan ummad soomaaliyeed dhiiggeeda daadinayo ama xalaalaynayo markay dhibaatadu gaadho uma soo gurmadeen haddaan qabo in la daadiyana xoolo uma soo ururiyeen dareen diineed weeye mas-uuliyad weeye culimmadu ay qabto waajib diiniya waay intaa waxaan idin taariikhdaasi wakhtiga idinkaga lumiyey calashaan inaad ogaataan xaqiiqada inaad ogaataan ummad badanoo been lagu lugooyo waxaan jirin loo sheegayna inay waxa jira ay ogaato intaas weeye aad baad u mahadsan tihiin kelimada aan doonayo intaa kadib intaa yartee taariikhda inaan idin ahdo dadka reer muqdisho waad mahadsan tihiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin jazakum allahu khayran caasimad inuu muqdisho ilaahay ka dhigay waa nicmo ilaahay idin siiyey waay ummaddii soomaaliyeed inaad hooyo u noqotaan caasimaddu waa hooyadii dalka waay ummaddii oo dhan uruurinaysa intii waxa weeye waa idinka aqbalay soo dhowayntii iyo xafladdan iyo ka horba raallina waan ka ahay haba yaraatee nin u dudsanna ma ihi muxaadaraa laguu diiday uma dudsan mana sheeganayo magaalada muqdisho ayaa lagugu takooray ma qabo mana qabo inaad raalligeli ii siisaan sababtu waxa weeye wax dembi ood iga gasheen ood iga ma jiro markaan jawaabayana waxaa idhi muqdisho waa magaalada haba yaraatee cuqdad aan la noqonayana ma jirto insha allahu tacaala hadday duruuftu ii saamaxdana waan soo noqon oo waan idinla joogaa insha allahu tacaala sheekha muxuu ahaaye walow walaalaha qaarkood hadalkooda wadaadada kala qabta uu ka muuqday wadaadada kala qabta ma aha masaladu wadaadada kala qabta ma aha masaladu waxa weeye wadaad baa khaldamay ninka khaldamayna waa in la yidhahdo waad khaldantay saasay baasha ku hagaagtaa annagu intaan doonannay khalad maana abuurin mushkilo maana abuurin ujeeddadayduna ma aha inaanan muxaadaro dhigaba markaan meesha imaanay laakiin bulshada qaar ka mid ay culimmadaa iga codsaday dhowr beli nala joog khudbada jumcadana noo jeedi muxuu ahaayey muxaadaraadna magaalada ka jeedi waan baaqday anigoo magaalada nairobi hawlo badan kule baan saa u baaqday hadday mushkila abuurantayna go-aan waxaan qaataya intii hatax iska dhaaf dhiig ku daatee ruux soomaaliya intii lagu xidhi lahaa ama xabsi ku geli lahaa sababtay ah ayada dhan hala kansalo ayadoo weliba dawladdu ku madax adag tahay anaa diiday oo ku idhi maya ma dhacayso xataa madaxweynahaya waxaan ku qanciyey qiso waxaan u keenay cuhmaan ibnu cafaan khaliifatu rasuuli llahi sal alla alay wasalam ayaa waxaa loogu yimid duulaan niman kacdoona duulaan ugu yimid xafiiskiisii bay isku wareejiyeen inay dilaan bay rabeen saxaabadii nebiga sal alla alay slam la joogay baa damcay inay difaacaan oo dagaalamaan oo khaliifka muslimiinta difaacaan cuhmaan wuxuu ku yidhi ruux muslima intii sababtayda dhiig ugu daadan lahaa u banneeya faraha ka qaada ha dagaalamina way ka baxeen saxaabadii nimankii way u soo galeen cuhmaan isagoo qur-aan akhrinayay ku dileen qisadaasaan xataa u sheegay dowladdoon ku idhi maadaama khaliifkii muslimiintu dhiiggiisii in la dilo u oggolaaday calashaani muslimiintu ha badbaadeen muxaadaro laga maarmi karo inay muslimiinta dib u soo gaadho sax maaha sidaasaan marka ku baajinnay sidaas daraaddeed wadaadka iyo wixii la fikrada iyagana waxba uma qabo soomaaliya oo dhanna waa saamax dad fara badan oo la lugooyey oo aflagaada iyo wax badan sameeyeyna ayaguna waa cafi idinkuna waad mahadsantihin haddii uun munaasabadii timaado oo laysu yimaadana masaa'il wixii ah culimmada dhex yaalla in laga wada hadlay ku fiicanta wixii laysla afgaran waayana nin walba uu tiisa si nabadgelyo ah ku wato wixii laysla afgartana si walaalnimo loogu wada socdo isaguna waa cafi intii gaf gashayna waa cafi dhammaanteenna allah ina wada cafiyo aadna waa u mahadsantihin jazakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullah